Okay, baraatikadena koowaad aanoo bilaabatay. Okay, ila soo marka. Standard icon aanoo bilaabay. Standard icon haddaan maqasho waa shayada asalka ah ee ku soo dega computerka. Marka Windows-ga lagu shubo waxaa jira kuwa asal ah icons alla waxa oo dhalada ku saaran waxa la isku dhahaa icons. Icon-ka waxa loo qaybiyaa standard icon ama application icon alla. waa kuba marka Windows-ga lagu shubo computerka arkaysid waay telefonkaaga marka soo gadato standard icon oo leeyahay kuba asal oo leeyahay oo ku soo degay waana kuwaan shanta xabo waay recycle bin oo ah meesha waxa la game ee ku dhacayaan control panel waa setting meesha waxyaabo marka ka qaldooma aan ka sixi doonto waay computer waa keedka meesha ka geli lahayd waa qaybta keedka network waa qaybta internet ku qaabilsan user fail ama documentigan waxa ay sinacaaway magaciga ay u qoranaane waa sina meesha documentiyada qoraalka aan qorto meesha ugu tagi lahayd waay waxyaabaha qoraalka iyo meesha ugu tagi lahayd waay ay standard icon maxaa la waa shay waxaan marka Windows lagu shubay waxay ka muuqdaan mar waliba intee ka muuqdaan ay marka Windows lagu shubo leftiga ka muuqdaan خلاص aba qeexitaan noo eeg ay waa aragna sheeyadan maxaa nooga horeeya see loo qariyaa ay ila soo marka practice waay xilliga dhalada la fiiraa qaabkee loo qarinayaa sheeyadan dhalada ii saaran meel ka banaan dhalada right click marka ku dhaay dhinaca midig taabaan ka wada meel ka banaan dhalada tag muuska meel ka banaankay right click dhanka midig muuska taabo kadib waxaad dooranaysaa view waxaad sax ka qaadaysaa show desktop icon sax ka qaad maxaa dhici doono waxa dhalada ku saaran oo dhan way isqarinaysaa u soo bandhigaa isla wadada hadda meel ka banaan dhalada right click view waxaad sax saaraysaa show desktop icon sax saar maxaa dhacayo way ku soo naqanayaan taas waa sheegnay waxaa jira hadin standard icons waxaan rabaa shanta xabo inaan qariyo ila soco waxaan rabaa shantan xabo inaan qariyo qaabkee u qarinaayadana meel ka banaan dhalada right click view wuxuu ahay dhammaan oo ahay hadda ilaa shanta gaarkaan qariyaa meel ka banaan dhalada right click personalize waxaan dooranay meel ka banaan dhalada right click ku dheh personalize markaas qaabkaas u doorato waxaad dooran doontaa change desktop icons change desktop icons waxaad dooranaysaa qaybtan ee ku qoran tahay change desktop icons dooro kadib waa kan waxa ku soo baxay desktop icons saxa ka qaad waxa ka qaadaysaa saxa ayaa ka qaadaysaa kadibna waxaan leeyahay apply kadibna okay close kuwan waa soo dhigay waxaan ku dhahay control box loo yaqaan close iga dheh way isqariyeen shanta xabo waxaan rabaa inaan soo bandhigo meel ka banaan dhalada right click personalize markii shanta xabo la soo bandhigayo waa personalize ka tagay meel ka banaan dhalada right click personalize kadib maxaa dooree change desktop icons waxaad sax saaraysaa computer user fail oo my document loo yaqaano network control panel recycle bin oo waa noo saaranta control panel kadibna apply kadibna okay close waxaa dhici doono shantii xabe inay noo soo baxdo waatan markaan rabo inaan soo guuriyo korkiisaan tagaa leftigaan qabanaa waa ku jiidaa waa kortagaa leftigaan qabanaa waa ku soo jiiday adoo leftiga qabo soo jiid meesha sagxadda muuska waa kay kan kala tag marka korkiisa tagto leftiga qabo soo jiid waa standard icons loo yaqaanaa ayaa loo yaqaanaa kadib waxaa jira waxa loo change appearance standard icons qaabka loo bedelo muuqaalka shaygan haddan waa kan qoraatigadaas qaabka loo bedelo shaygan sawirka saaran icon waxa la sawirka saaran waxaan rabaa inaan bedelo qaabkee u bedelaa sawirkan network oo kale sawir ii gooni inaan saartaa rabaa ma saara karaa kaaga xataa waa saara kartaa
meel ka banaan dhalada right click personalize change desktop icons kadib maxaa dhahay change lagu waa laga horeeya dooro maxaa rabaa waxaan dhahaa network aan dooraha kadib change icon network meesha ku aragto waxaan dhahaa calaamad waxaa ii saartaa dhowr calaamadaa jirto ma jeedaa dhowr cameradaas ii saaraan dhahaa kadibna okay kadibna apply meeshaan network ku aragto maxaa dhacaya network maxaa lagu saar calaamada camerada see ugu baabi'iyaa meel ka banaan dhalada right click personalize change desktop icons shaygaa doorane kadib maxaa dhahay restore default kadibna apply okay waa qaabkaasina loogu bedelo waayo sawirka restore asina waa sharaxay ay ciwaanka aan ku soo ceysto meel ka banaan dhalada right click personalize change desktop icons ay ciwaankii dooro kadibna change icon okay waxaa ii saarnaa imaana sawir icon aan saaranay browse aan dhihi karaa daro browse ii dheh waxaana sawir ii gaar ah ii soo geli meel hebel oo ii yaala sawir ku gaar ah lagu soo geliyaa meesha ku yaala desktopka oo yaala ay desktop keewaay mid kaaro sawirka icon oo saarmaa marka hadaad kana ku bedeli kartaa waxa rabta ku bedeli kartaa marka ka saara kartaa mid ka rabta saara kartaa cancel iga dheh hadda hadaaro sidii soornaan ku cesho restore shayga doornaa restore default okay apply okay ka qaybtaas aynu joogo